konton sano ayaa ka soo wareegatay markii si rasmi ah loo qoray farta Soomaaliga sanadkii 1972 xilligaas ayuu manhajka dalku isku balay farta Soomaaliga walow uu soo maray heerar kala duwan balse waxa lagu wada xiriir jiray afafka qalaad iyo suugaanta inkastoo dawladii Jenaraal Maxamed Siyaad Barre ay hormarisay luqadda dhammaan laga hirgeliyay dalka ololihii barashada luqadda Soomaaliga taasoo mawlba la gaarsiiyay xitaa miyiga oo ay reer gureegu ka faa'iideysteen balse xilliga ay burburtay dawladii dhexe sanadkii 1991kii luqadii iyo suugaantii waxa ay noqdeen kuwa dayacan iyagoo sidoo kale u kala farxaday sida dadka Soomaaliyeed ugu kala farxadeen daafaha caalamka iyo wadamada shisheeye kuna darso xilliga ay jirtay dawladii kacaanka waxa dugsiga lagu baran jiray farta Soomaaliga dhammaan maadooyinka manhajka ku jiray sida sayniska xisaabta iyo wax kasta oo kale maanta waxa barashadu waa mid baahsan guud ahaan dalka dugsiyo iyo jaamacado ayaa meel walba daadsan laakiin nasiib darro waxa lagu barto waa luqada shisheeye sida Ingiriiska Carabiga iyo afaf kale oo aan Soomaaligu ku jirin iyada oo afka Soomaaliga uu asagoo hal xiisad ah uu ku jiro jadwalka waxbarashada iskuulada dalka xafiisyada dawladda qoraalada bangiyada xayisiinta jagooyinka iyo dhammaan hay'adaha dawliga ah waxa lagu kala xiriiraa afafka qalaad halka afkeen uu ku soo aruuray ku hadalka oo kaliya